بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga Soomaali haddaan nahay. waxaan soo dhaweynay oo nala jooga marti noo ah yimiday muxuu ahaa dalkiisii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ummadda Soomaaliyeedna farxad iyo reereen ayay u tahay dawladda Soomaaliyeedna sidoo kale anagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal heel walaal ayaa Djiboutina dalkan ay uga tilmaaman tahay annaguna ilaahay idankiisa markeena ayaan heel walaal rasmi ah yaan doorkeeda qaadan doonaa jamhuuriyadda saddexaad ee maanta Soomaaliya maamulaysaa asaaskeedii iyo dib u soo nooleynteedii mahad ilaahay baalag kadibna madaxweyne Ismaaciil ayaa abaalkeedii iyo mahaddeeda leh ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaan noola jooga walaalaha noo yimiday soo booqday soo salaamay talo ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday annaguna aan ka codsanay inuu noo yimaado aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa dalka Soomaaliya iyo dalka Djibouti waa laba dal oo horeyna aan u eeri waxaa naga dhaxeeya walax birina aanay gooynin biyana aanay meerin ayaa naga dhaxeeya waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran marka madaxweyne soo dhawow dalkan waa dalkaagii Soomaaliya way ku eegaysaa kalmadaada way sugaysaa aad iyo aad soo dhawow madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مالين ونعكسن أدباد ما تسنتهي مدحويني ولالكي حسن شيخ محمود doorashada dabadeed maanta ayaa ku soo siyaartay waxaan ka jawaabay yani casuumadaadii aniga iyo ummadda Djiboutina waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kugu nimaadno fursadani ducaa kugu nimaadno wadatashi dagaalka imika cusub ee gasheenna inaan ka marakaco ayaa iigu jirta socdaalkayga in anaguna aan haddaan Djibouti nahay aan garabgal iyo bogaadin iyo inaan qaybsano wixii dhibaato meesha ka iman kara waxaan arkaynaa ummadii reer Soomaaliya oo wada sare joogta aad bay noo farax gelinaysaa inta aan soo soconay wadada waxa aan arkaynay dad fara badan oo ay ka muuqato shucuur wanaagsani oo qalbiga iyaga taabatay dadkeenuna ninka raggan meediyagu hawshoodu waxay tahay inay tabiyaan waxa ay dareemayaan waxa ay arkayaan waxa ay maqlayaan waxa ay dadweynuhu ka sugayo in la gaarsiiyo maanta fariinta baan sidnaa walaalnimo iyo wada shaqayn ayaan aaminsanahay waana ku shaqayni doonaa haddii alla yiraahdo madaxweyne waa mahadsan tahay maalin wanaagsan